يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu halkan kasii wadi doonaa kitaabkeenii taxaanaha ahaa ee kitaabka loo yaqaano xadiisul arbaciin oo inaga yar kala go-ay ayaynu ilaahay ugu mahadnaqana inaynu dib isugu soo noqono. waa mahad ilaahay muxuu ahaay uu ina siiyey inaynu dib isugu soo noqono. xadiiska waxa inoo mareysay xadiiska shanaad ayaynu kasii qaadi doonaa caawa insha allah wixii ilaahay ogolaado ayaynu halkan ka dhigi doonaa. xadiiska shanaad can ummi lmuuminiin ummu cabdilaahi hooyadii ahayd caaishata ahayd radia allaahu ilaahay raali akaade canhumaa iyadiyo aabaheedba qaalat waxay tidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man axdatha ninkii kusoo dara fii amrinaa amarkayga ee haadaa kana maa shayga laysa aan ka mid ahayn minhu arinkayaga amba muxuu ahay aan ka mid ahayn hadalkayaga fa huwa raddun ay marduudun mid lagu celinaya qiyaamaha maalinka qiyaame weeji. wa fii riwaayatin riwaayad kale oo limuslimin muslim u sugnaatay imaamu muslim waxa uu leeyahay man camila ninka camal fala camalan camal fala ee camal shaqeeya laysa calayhi camalkaasoo laysa caleyhi ayna ku sugnaan amruna amarkayagu fa huwa raddun mid la celiyey oo muxuu ahaaye maalinka qiyaame lagu celinayo oo indhaha lagaga dhufanayo ayuu ahaaday. labada xadiis haddii aynu iswaafajino, xadiiska koowaad waxaa warinaysaa ummulmu'miniin mu'miniinta hooyadeed ummu cabdilaahi hooyadeed ahayd caaishata caaisha ahayd radia allaahu ilaahay raaliaka canhuma isaga qaalat waxay tidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi waxaan ka maqlay isagoo leh man axdatha ninkii kusoo dara fii amrina amarkayga haada ee kana maa shayoo laysa aan ka mid ahayn minhu amarka fa huwa isagu raddun ay marduudun mid lagu celinayo weeye. amarkayga ama diintayadan ilaahay uu soo dejiyey ee nebi maxamed lainoogu soo dhiibay wax aan ka midayn hadduu uu qofku la imaado maalinka qiyaame wuxuu doono ahaadee uu qofkaasi sameeyo maalinka qiyaame ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku celinaya indhaha ayuu kaga dhufanayaa. riwaayadan kale ee muslimna way ka yarduwanta waxaa leeyahy kii hore amar buu ahaa soo maha oo ninkii amar kusoo dara waa lagu celinayaa. riwaayadan kalena way ka yarduwanta waxay leedahay man camila ninkii shaqeeya camalan camal ayuu shaqeeyey salaad buu tukaday waxbuu tukaday laysa caleyhi amruna amarkayguna kumuu sugnaanin waxa uu sameynayo fa huwa raddun iyadana taa waa lagu celinayaa oo mid indhaha lagaga dhufanaya maalinka qiyaame weeji. xadiiska xaggaasaynu kaga baxnay. alxadiidu asaadis xadiiska lixaad can abi cabdilaahi nucmaan ibnu bashiir radia allaahu ilaahay raali a ka haadee canhumaa isagii aabihiiba laba saxaabi ahaayeen qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay ina alxalaala xalaashu shayga xalaasha la yidhahdaa bayinun waa shay la cadeeyey wa ina alxaraama xaraantuna bayinun iyaduna waa mid la cadeeyey wa baynahumaa dhexdoodana umuur ayay ahaatay mushtabihaatun isku egeeg laa yaclamuhunna ma garanayaan umuurta iyo mutashaabihaadka kathiiran in badanoo min annaasi dadka ka mid a ee faman itaqaa qofkii ka dhowrsado ashubahaata
shubahaadka iyo waxyaabaha isku eg faqad istabra'a wuxuu muxuu ahaayey la badbaaday ama uu badbaadsaday lidiinihi diintiisa iyo wacirdihi iyo sharaftiisa. waman waqaca qofkii ku dhaca fi shubahaat shubahaadka iyo waxyaabaha la iska ilaaliya waqaca fil xaraami xaraam ayuu ku dhacay. wadaalika mithaalkaasina ka raaci sida ninkii raaciga ahaayoo kale weeye yarcaa ku ilaalinaya ama ku raacaya xawla alximaa seeraha ama beerta hareeraheeda yuushaku waxaa shaki ah amba la shaki gelinayaa an yartaca inuu ku dhaco fiihi dhexdiisa. alaa waina likulli malakin alaa hooyay waina likulli malakin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximaa seere. alaa waina ximallaahi ilaahay muxuu ahaye seerihiisuna maxaarimuhu waxyaabuhu idiga ilaaliyey ayaa ilaah u seero ah oo muxuu ahaye u seesa. boqor kastaaba iyo muxuu ahaye nin kastoo wax maamulaaba seere iyo meel isagu leeyahay oo aan loo soo dhaafi karin ayuu leeyahay. ilaahayna meesha aan loo soo dhaafi karin ee seerihiisu waa maxaarimtiisa ood iska ilaaliso. alaa waina filjasadi jasadka iyo jirhka waxaa ku sugnaatay mudqatun waslad ayaa ku sugnaatay. idaa salaxat hadday wasladaasi hagaagto salaxa aljasadu jirhka wuu hagaagayaa kulluhu dhammaantay. wa idaa fasadad hadday xumaato muxuu ahaay mudqadaasi fasadad jasadu kulluhu jirhka intiisa soo hadhay oo dhanna way xumaanaysaa. alaa hooyaay muxuu ahay walbaraarujinaya alaa hooyaay wahiya xubintaasina alqalbu qalbiga weeye. xubinta haddii ay hagaagtana qofku uu wada hagaagayo, haddii ay muxuu ahaye ay xumaatana jirka oo dhan ay xumaanayo waa qalbiga. qofka meesha u hagaagsan ee uu ka hagaagayo ama uu ka xumaanayana waa qalbiga. rawaahu al-Bukhari wa Muslim. xadiiskana waxa wariyay Bukhari iyo Muslim. halkaas cashirka inoogu joogi doonaa. والله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم وبالله التوفيق.